agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jaamac axmed abdi diilo oo safar shaqo ku mariyay gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo gaadhay degmada Garadeg gobolka Sanaag isagoo u kurgalay xaaladda xabsiga degmada Garadeg isla markaana soo gaarsiiyay dawooyin iyo agabka isboortiga oo loogu talagalay inay ku ciyaaraan maxaabiista ku jirta xabsiga degmada Garadeg. Agaasimaha ayaa soo indheeyay qaybaha uu ka kooban yahay xabsiga degmada Garadeg isla markaana la dhacay bilicda iyo quruxda ka muuqata xabsiga degmada Garadeg isagoo u mahad celiyay ciidanka asluubta ee degmada Garadeg isla markaana ku tilmaamay ciidan mudan in la higsado. agaasimaha degmada iyo gobolka ku soo dhaweeyeen xubno ka tirsan ciidanka asluubta iyo taliyaha ciidanka asluubta gobolka Sanaag gaashaan la sare maxaa digaar Saciid. taliyaha ciidanka asluubta ee degmada Garadeg Dhammi Xuseen Yuusuf Barre ayaa ugu horeyntii waxa ka warbixiyay xaaladda xabsiga degmada Garadeg. taliyaha ciidanka asluubta ee degmada Garadeg Dhammi Xuseen Yuusuf Barre oo agaasimaha iyo wafdiga hogaaminaya ku soo dhaweeyay degmada wuxuuna yidhi sida tan: run ahaantii waxaan u malaynayaa wixii uun indhaakaan ayay ka gooyaan. waan u malaynayaa inay shaqada xabsiga ka socota iyo hawsha ka socota inaa magaranaysaa insha Allah kariim aad dareenteen. waxaas waxa weeyaan insha Allah kariim waa wax qabadka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa qabadka halka ka bilowday oo baan la jaan qaadnay annaga iskay wax u qabsanay cid kale oo magaranaysaa aan wax ka doonin ma jirtaan. waxaanu qaybin soo tusnay xabsigu kala duwan yahay haday noqoto qayb caruureed, haday noqoto qaybta dadka waaweyn, haday noqoto qaybta haweenka, haday noqoto xafiisyada, haday noqoto beerta weyn aynu dhex joogno, haday noqoto dhismaha ka socda. waxaas oo dhan waxa weeyaan waa isku tashi ciidanka asluubta ee gobolka Sanaag oo taliyaha qaybta nagu hogaaminayo iyo xabsiga maxay tahay taliskan xabsiga degmada Garadeg oo magaranaysaa insha Allah kariim wada. waxaan runtii aan halkan aan idin ka sheegayaa hawsha tan ma qabsoonteen haddaan ciidanka asluubta ee degmada Garadeg aanay daacad ka wada ahayn. sidoo kale isaguna waxa halka ka hadlay oo ku warbixiyay xaaladda xabsiga iyo xabsiyada gobolka Sanaag taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Sanaag gaashaan la sare maxaa gobolka Sanaag wuxuu lahaa xabsi aad buu runtii u koobayo u yaryahay. waxay gantay markaa in loo helo meel kale oo maxaabiista la geeyo. sidaas ayana fikirka oo ku bilowday maanta ceelaf weyn oo weerada waa soo marteen. Garadegna waynu aragnaa xabsiga dhexe ayuu qaadayaa ilaa 200 ilaa 300 400 maxuus baan ugu talagalay inuu halka qaado oo qaybtii dumarka oo qaybtii ciyaalka oo qaybtii ragga oo intuba dhammaystiran yihiin. beertii muxuu ahaa balligii weynaayay, malcaabadii, masaajidkii, goobii lagu ciyaarayay intoo dhan uu leeyahay. de waxay la taagaysay iyo madaxdu indhiina ku aragteen. haddana dayrka yar baanu ahaanay inta salaaxii cadayntiisu baanu ahaanay. waxaanu ballansanay taliyana waxaanu ballansanay insha Allah. runtii gabagabadana waxa halka ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda oo isagoo ciidanka asluubta ee degmada Garadeg ku tilmaamay ciidan mudan in la higsado isla markaana u mahad celiyay isagoo la dhacay bilicda iyo quruxda ay ka sameeyeen xabsiga degmada Garadeg. Soomaalidu waxay tiraahdaa de ciid baa indheeda u buuxiya, laakiin halkan aniga waxay igu dambeysay xabsigan muddo malaa 5 sano 7 sano ka hor ayaanu maray iyadoo maalinta madaxweynaha nala socday 5 sano ka hor bay ahayd. maalinta de xabsiga waxa dhisnaa de kala badhna uu ka yara. maanta de kanoo kale xabsi maalinta xabsi buu ahaa maanta, laakiin xabsi ma aha. halkan waxaanu ku aragnay waxaananu ku soo arag xabsiyadii hore oo aan leeyahay taliyaha iyo taliyaha xabsiga iyo taliyaha qaybta gobolka Sanaag iyo askartuba iyo saraakiisha kaleba. waxaan leeyahay wax lagu farxo, waa wax taariikhdu idin xusi doonto. ninku qofku markuu dalkiisa wuxuu qabto, ummadiisa wuxuu qabto ayuunbaa magaciisu tan waa laga tegayaa, laakiin adduunyada taariikh u baahaysa. waxay la tahay taliyaha qaybta gobolka Sanaag taariikhda qori doonta. waa Madar Sare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Garadeg.